xilligan hadda aan hadlayno maxaa ka socda magaalada Laascaanood gobolka Sool waxaan la soconay habeennimadii xalay in muddo 15 daqiiqo ah in beesha dhulbaantay isku xoreeyeen isla markaana dhulkoodii dhan waliba Laascaanood aan dhaxna gudaha magaalada in isla markaana ka saareen ciidanka SNM ku soo duulay hadaba hadda xilliga aan hadlayno maxaa ka jira Laascaanood iyo waliba xogihii u dambeeyay ee arintaasi ama gobolkaasi ka imaanayo gobolka waxa weeye Sool haddii aan ku bilowno Laascaanood habeenkii xalay isku horimaad baa ka dhacay habeenkii hore isku horimaad baa ka dhacay iyo kii ka sii horeeyay laakiin habeenkii xalay baa ugu darneed oo markii ciidanka Muuse Biixi ee Somaliland ay nin kamid ah dadka qaadka ka ganacsada ee halkaas ay ku dileen taasna ay keentay godod marka shacabka ay gododaan waayo horey waxay uga andacoonayeen in dilal qorsheysan markasta in lagu furiyo marka iyadoo tii ay taagan tahay oo intaasoo ilaa 20 milyan kadib ay mudaharaadkii iyo rabshadii dhacay ee ku dhinteen si bareer haddana ciidankii Somaliland mar kale ay nin u dhex toogteen magaalada bartankeeda taas markuu waxay keentay in shacabkii iyo waliba dadkii qoryaha lagu tuhmayay oo ugu horeeyay Maxamed Jabuutabi inuu hubkoodii la soo baxaan isla markaana ay dabka saareen ciidamada markaas magaalada ku sugnaa taas markuu waxay keentay in ciidamadii Muuse Biixi isla markiiba magaalada ay si degdeg ah uga baxaan iyaga oo markiiba fuulay buuraha laba buura oo waaweyn ayaa magaalada Laascaanood ma taqaanay labada gees ka kala haya buurihii intee fuuleen qorihii waaweyn magaalada ku soo jeediyeen taasi oo ku tusinayso inay doonayaan in gabi ahaan magaalada inay baabiyaan hadda waxay maagan yihiin qorshe halis ah taasi oo haddii aan laga digtoonaanin dhibaato badan keeni doonto maanta shir ku dhaxmaray guddiga xisbiga kulmiye ayaa waxa ay kaga arinsadeen waxa ay ka sameynayaan Laascaanood marka waxay isku afgarteen in Laascaanood xilligan xoog ay u baahan tahay maadaama yacdi iyo wixii ma taqaanay farada badnaa ay waxba kaga qaban waayeen waayo waxay sheegeen in beesha dhulbaxante ay ku doodayso in ay soo ceshanayaan sumcadoodii iyo karaamadoodii iyo waliba khaatamo ay ku dhawaaqeen isla markaana calankii Soomaaliya ay ka taageen Laascaanood taas marka way ka xumaadeen SNM waxayna sheegeen in saacadaha soo socdo ee Somaliland ay doonayso in weerar toos ah inay ku qaado magaalada taasi oo waliba ay ogoleeda ayna dhahayso waana la soo weeraray inaguna waan isdifaacnay qorshaha caynkaas ma taqaanay wataan inay leeyihiin ciidamada soo weeraray ciidankaas oo ma taqaanay ka imaaday Puntland oo la soo galiyay Laascaanood si qarsoodi ah isla markaana dagaal nala galay taas daraadeed marka waa in qoryaha waaweyn ee dadka shacabka ay ku xasuuqaan ee ma taqaanay doonayaan waxaan loogu baaqay beesha dhulbaanta iyo waliba gaar ahaan geesiyaasha gobolka dirirka ee SNM SSC in ay sameeyaan in ay ka digtoonaadaan hagardaamadaasi ma taqaanay la doonayo in lagu beegsado maanta waxaa dhufaysiya laga qotay magaalada bartankeeda iyo meelo badan oo ciidamada ma taqaanay SSC ay sameysteen kuwaas oo ay doonayaan in haddii ay isku dayaan ciidanka Muuse Biixi inay iskaga difaacaan garaajama oo sanadka kamid salaadiinta Sool Sanaag iyo Cayn oo maanta dhaxmaray magaalada ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in ganacsiga dib loo furo isla markaana wada hadal dib loo furo oo la doonayo in xaaladda sida hadda ay taagan tahay in laga xalliyo oo muxuu ahaa wax badan oo hadda taagna in dib mataqaan isku noqdo Somaliland arintan way ka shalaysay maadaama saanamaysa ay moodeenin waayo dilal badan oo hore aan tiro lahayn ilaa 112 gaarayo ay hore u fuliyeen laakiin midkan waxa uu ku noqday mid aan caadi ahayn dilkii Hadraawi aad bay mataqaanay uga shalaayeen ismayna lahayn halkaas mataqaanay gaari doonta iyadoo taas ay taagan tahay xaaladda Laascaanood ayaa haddana waxaa maanta shir ku galay magaalada Muqdisho beesha Hawiye iyaga oo sheegay inay garab iyo gaashaanba u yihiin beesha Isaaq وهذه دولان لو سو قادو سي iyagoo ay sheegeen waayo waxay leeyihiin hadii marba daaroodkii joogay Puntland iyo Jubbaland iyo Jigjiga ee wada qaylinayaan oo leeyihiin dhulbaanta ayaynu difaacina maxay noo diidayo inaguna inaan irir Soomaali inaan ku difaacna beesha Isaaq waa sida iyaga hadalka ay u dhigayaan marka waxay doonayaan in iyaga oo taas ka duulayo in iyagana ay dagaalka dhankooda ay ka soo galaan laakiin waxyaabaha isweydiinta mudan waxa ay noqotay markii dagaalka iyaga xageebay ka soo gali karaan waayo xuduud lama aha iyaga gobolka Sool iyo waliba SSC laakiin daaroodku uu ku hareereysan yahay beesha Isaaq oo goonyaha ay ma taqaanay ka jiraan darafka laakiin Hawiye markii loo fiiriyo waxay dagaal ku qaadi karaan Puntland inay toos u aadaan ma ogi meel kale oo hadda iga soo duuri karaan mise inay diyaarad soo qaadaan ma ogi malaha dhanka kale hadiiba taas ay dhacdo lafteeda beeshan dhulbaante waxay leedahay inagu Soomaali weyn ma raadinayna marka hadii ma taqaanay beeshan irir Soomaalihan isku hiiliyaan igana meeshaas wax soo kaan baxayo hankii beesha dhulbaante ee Soomaali weyn
ماشي اسنا إنه كبحة مثلا هي نقونيسا على كل حال ciidamo kale oo gurmud aad u fara badan oo ka imaanayo dhankaas iyo Garowe ayaa maalmahan iyagana maanta xuduudaha soo gaaray Tukaraq dhowr mar bal isku farasaaray inkastoo dagaal aad u xoogan oo waaweyn ee halkaas aysan ka dhicin waan aad u xoogan ma taqaanay socoto dhan walbana ay ku saabsan Puntland horey bay u cadeysay mowqifkeeda ku aadan Laascaanood oo ay dhaheen inagu waxna go'an in beesha dhulbaanta ay xor ay noqoto 15 sano kadib ayaa maanta iyo habeenahan waxa lagu arkay iyadoo calankii Khaatuma laga taagay bartamaha magaalada la baabi'inayeen calankii mataqaanay Soomaaliland SNMta laga tirtiray gidaaradii iyo meelihii uu ku tirnaa iyo xataa meel uu ka luulanay dhamaan laga saaray isla markaan calankii Soomaaliya iyo Khaatuma mataqaanay laga taagay garaadka guud ee beesha dhulbaanta garaad jaamac isagana waxa uu sheegay habeen dhaweed in ay iyagu ay doonayaan Soomaali weyn laakiin marna aysan suurtagal noqon karin in nidaamka musabbixi in ay hoos tagaan dad badan oo wax ka qoro Somaliland ayaa hore waxay u sheegeen in musabbixi uu nabadda Somaliland inuu god uu ku ridayo waayo waxaan hadda Laascaanood ka taagan baa waxay sheegeen in isaga uu ka yahay waayo markii hore waan ba jirtay iyo waxyaabo badan oo la isku afgartay laakiin tan iyo markii isaga uu xukunka u qabtay waxa uu bilaabay in wax walba iyo qorshe kasta oo la isku ogaa inuu buriyo isla markaana uu soo dhaweysto cid isaga mataqaanay kaliya uu doonayo oo ah cid isaga markaas wax la cunayso in yar oo mataqaanay kamid ah koor iyo waliba indha dadkii kale mataqaanay la xasuuqayo la laynayo wixii doonaan mataqaanay laga sameeyo taas marka waxay keentay in gumaad lala beegsado shacabka Laascaanood iyo waliba gaar ahaan gobolka Sool marka gadoodkii iyo dhibkii ku batay shacabka waxa ay keentay natiijo ah in maanta reer Sool 15 daqiiqo gudahood in iskaga xoreeyeen ciidankii Somaliland haddana ay xor ay yihiin oo ay leeyihiin magaalada waan xoreysanay hadda kadibna duulaan ayaynu qaadeenaa oo ciidamada kale ee mataqaanay magaalada daafaheeda joogo hadda mataqaanay saartay qoryaha dhishiikaha iyo qoryaha waaweyn buuraha ayaynu iska saareynaa waana midda hadda mataqaan laga cabsi qabo mar kale in magaalada uu dagaal u ka dhaco dadkii deegaanka waliba magaalada deganaa inta badan way iskaga qaxeen waayo magaaladu waxay iska noqotay furin ganacsiga ayaa waxa loogu baaqaya shacabka inay furaan halka dadka kalena ay ku dhawaaqayaan in ganacsiga aan la furin maadaama ilaa hadda xaaladii ka socotay magaalada Laascaanood xaalkeedu ilaa hadda si rasmi ah uusan u dagin xoogii ka soo wax alla wixii xoog oo ka soo kordhay halka iyadana halkan ayaan kula wadaagi doonaa waa meesha kaliya isha rasmiga ah ee markasta warar xaqiiqo ah aad ka heli kartaan wooye dhaxaad ah kuna saabsan guud ahaan caalamka aad ayaan uga hadalnaa gaar ahaan hadda Laascaanood oo xiisadu ay ka taagan tahay muuqaalka shargareeya asxaabteena la wadaag waan ka mahad celin sida wanaagsan ee markasta aad noola jaan qaadaysaan